wax kalena ma dad muslimiin baa geeyey waaridiintana iyo dadkan iyo ixtifaalaadkana faa'iidooyin fara badan bay leeyihiin hadda maalin dhow taayadana faransiiska waxaa ka dhacday macluumad ardayda wax baraysa waxay ku tiri waxaa laydinka rabaa rasuulul islaam sawirkiisa la keeno ilmihii marka canug yaraa ku jiro musline marka canuga maalin walba wuxuu arki jiray habeen walba canuga hooyiisa siirada nebiga ka sheekaysa calayhi salaam nebigana ku salliso wixii buu ku barbaaray maxabadii nebiga gasha asigoo yara xataa secondary gaarin aad u yar markaasuu yaa wuxuu yidhi see rasuul islaam u sawiri karaa weligii mama arkinba wax keliya ka maqlay inuu dabeecad wanaagsanay inuu dhimrin badnaay inuu dadku naxariisan jiray xataa kuwa cadaadiisu inuu ixtiraami jiro oo u sabri jiro baan maqlay seen u sawiraa markaasee macalimadda waxay ku tiri waxaas ma jirtee sawirka rasuul islaam haddaa la keeno canugii gacanta kula qaata ku taagay inuu la hadloo damacay markaase waxay ku tiraahda ma cid hadli karta ma jirto maanta sawirkaa laydinka rabaa banaana u baxana way diiday nin walbana waxaa layidhi waraaqda ha keeno marka aad buu canuga u fakira waa kurbaaday waxbuu qorqoray macalimadii u dhiibay waa kasoo tegey habeenkii dhan marka kasta canugii kurboo la joogay waa rafaaday maskaxdiisa aad bay u warartay markaasaa markay macalimadii sawirada markay fiirinaysay marka canuga magaca maxamed buu qoray markii عليه الصلاة والسلام dhinaca kale markuu ugu qoray waraaqda korkeeda macalimadeedii hadaad ogaan leed nabi maxamed cidoo yahay sawira ma aadan dhahdeen hal codsiyan wataa soo bar taariikhdiisa bal soo raadi markaas way go'aabtay way iska fadhiisatay guriga tagtay macalimadii habeenkii dhan bay internetka gashay yoohay maxamed ha qorto taariikhdiisa ha baarto sidii u raadinaysa markii dambe waxay go'aansanay masaajidada tagto imaam bay u tagaysaa waxaa leedahay bal nabiga uga sheekay calayhi salaatu wasalaam waa uga sheekeeya qof walbo muslim warto waxaa leedahay nabiga uga sheekay calayhi salaatu wasalaam ilaa markii dambe qalbigii macalimadda ilaahay hanuun geliyey sidii bayna ku soo islaamtay canugan yar ka soko xageebo ka imaada marka inuu canugan ku dhasho waxaan maxabadan iyo ku dhashay waaridkiis buu ku dhalto oo ku soo barbaariyay inuu salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo barbaariyay barashada taariikhda ku soo waxaan marka aan barbarayno oo dadkana loo sheegayane waxaan wax annaga ku sharafooweyno